بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمد الصوماليات وأين سلامي ميل كستو جوجتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan idin hayaa wadada kugu dhow ee aad ku gaari lahayd guushaada ma doonaysaa in aad guulaysato mise magacaagu xidig gaaro haddii uu yahay jawaabtaadu haa ku dhaqaaq wadadan ku sheegayo koow in aad ku dhiirato ama aad ku dhaqaaqdo samaysana waxa dadka kale ee kulmidka ah ku dhiiran ama samayn karin waa karti iyo go'aan qaadasho aad kaga saarayso kagana guulaysan karto cid waliba aan isku day iyo aragti fog lahayn waana hodannimo iyo hufnaan dhab oo aad naftaada deeqayso labo sidaan wada ognahayba qof waliba dunidan ku nool waxa uu jecel yahay inuu gaaro guul waxa uuna habeen iyo maalinba raadiyaa siduu u gaari lahaa waxa uu hiigsanayo iyo wadada uu mari lahaa siduu u gaari lahaa ama noqon lahaa mid guulaysta ogow haddii uu hamigaagu yahay inaadan guul dareysan waxaad tahay qof noloshiisa hogaamin kara kuna hogaamin kara wax waliba wanaaga nolol raaxo lehna ku noolaan kara haddaad intaas la timaado waxaad tahay qof naftiisa ku kalsoon bulsho badanna bedeli kara haddaad bulsho badan bedeshana waxba kulama ahan inaad dunida kusoo kordhido aragti cusub sidaa darteed qof waliba anaga naga mid ah waxa uu ku hamiyaa caalamkan inuu magacyo maamuus ku yeesho intuu nool yahay markuu dhintana inta dunida ku nool ama kaga dambayso ay xasuusato ama qulubtooda aysan ilaawin haddaba iyadoo ay qof waliba sidaas ku haminayso ayay dadka u kala baxaan laba qaybood qof guulaysta waa qof aan niyad jabin daalin awoodiisa iyo kartidiisana muujiyay riyooyinkiisuna ay urmoobeen adduunkana wax cusub iyo fikir uu leeyahay kusoo biiriyay magacaan duqoobinna kaga tagay qof guul dareysta qof kalena waa mid ku guul dareysta in uu hamigiisa gaarin halka uu la rabay wuxuuna dhintaa isagoon caalamka shayna kusoo kordhin ama wax kaga bedelin hadafkiisa ahay inuu guulaysta buuggan waxaan ku sheegayaa inaad ku guulaysato wax kasta oo aad hamido iyo wadada u mari lahayd sidaas darteed iyo sidaan hadkaaga u gaari lahayd ama kor ugu qaadi lahayd iyo sidaad u heli lahayd dhiirigelin buuxda sidaan yeelan lahayd yool iyo aragti fog iyo sida ugu dhibta yar ee aad qorshe u samaysan lahayd sidaad u kasban lahayd dadaal iyo dulqaad inay kaaga go'an tahay inaad guulaysato rabidna tala saarato buuggeena labaad waxaan ku sheegi doonaa wadooyinka kale waad u mari lahayd balse u dhaqaaq tilmaamahan ku sheegay